agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu waxaanu yidhi waa run buu yidhi garoonka xashiishku u yaallaa laakiin deegaanka koob iyo soddon kame iyo axmed dhagax dadka ku nool ayaa habeenkii ku daadiya xashiishka taasina waa gef waa ceeb in beel dhan ama deegaan dhan la yidhaha garoonka ayaa xashiish ku daadiya wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha waxaa jira garsoorayaal aan mushahar baqaan cabdirashiid cadiid yaasiin muddo 7 bilood ayuu xilka hayay waxaanu dhistay gurigii ugu weynaa oo masalaha ka dhisan ha ku lacagta ka keenay in la xisaabtamo hanti dhowr waliba la geliyo ayaanu baahanahay wuxuu ma jeclaa dhowr qodob inaan ka hadlo oo ku saabsan shaqadeeda dhalinyarta ee ciyaaraha saad loo socoteen maalin dhaweytoole isuduwaha ciyaaraha gobolka Maroodijeex cabdiraxmaan jaamac roobla shina karaacin waxa uu magacaabay tababaraha xulka gobolka Maroodijeex tababaraha kooxda kubadda cagta ee booliska ama goodir loo yaqaano Jamaal Jante waxa hor istaagay oo diiday agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha xaqna ma laha mana hor istaagi karo xagga ciyaaraha markay noqoto magacaabista tababarayaasha waxa xaq u leh isuduwaha gobolka Maroodijeex sidoo kale waxaan ka hadlayaa sadlada socoteen maalin dhowrta waxaan idhi qodobaan ka sheekeeyay iyo in garoonka Hargeysa Stadium xashiishku uu ka buuxo suuliyadu ay buuxaan dhaliilaha soo jeediyay dhaliilihii agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu isagoo burcad joogay soo jawaabay waxaanu yidhi waa run buu yidhi garoonka xashiishku u yaallaa laakiin deegaanka koob iyo soddon kame iyo axmed dhagax dadka ku nool ayaa habeenkii ku daadiya xashiishka taasina waa gef waa ceeb in beel dhan ama deegaan dhan la yidhaha garoonka ayaa xashiish ku daadiya waxaa jira agaasimaha guud waxa uu sameeyey inuu xidhxidho ciyaartooygii magaca iyo sharafta ee karaamada lahayd waxa imika xidhan cabdishakuur isko oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee maalgashiga cabdishakuur wuxuu ku xidhan yahay habeen dhowto cabdirashiid adna horteedu kula dagaalamay ciyaartooy isagoo baaskoolad sita ciyaartooygii ay dagaalameen ayaa inankan oo ag taagan baa ku qoslay wuxuu imika ninkaas ku xidhan maxaad u qosashay markii aan dagaalamayay waxaasina waa sheeka inuu aad iyo aad inagu cusub wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha waxaa jira garsoorayaal aan mushahar baqaan oo ilaa imika aan guna qaadan laakiin maalinta ay ciyaaraha qabtaan wax qaataan halka uu haddaan ku celinay halka uu cabdirashiid inankiisii gareedhe uu ka dhigay wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha waana caddaynteedii wixii dhan waan haynaa cabdirashiid wuxuu hor istaagay kooxda ilaalada xeebaha oo u soo baxday oo loo ballan qaaday in mushaharkoodii iyagoo 45 ciyaartooy ay cabdirashiid hor istaagay waanu ka sagariyay 45 ka ciyaartooy maanta xaq iyo xuquuq waxay lahaayeen waxa hor istaagay cabdirashiid cadiid yaasiin kooxda kubadda cagta ee la yiraahdo Bavaria oo kamid ah kooxaha heerka saddexaad oo xiriir ku aqoonsaday inay kamid tahay kooxaha seerasida wasaaradda arrimaha dibadda ayaa qaadatay mushaharkiina uu bilaabaysay waxa hor istaagay cabdirashiid cadiid yaasiin wuxuu ku soo koray oo uu deganaa garoonka Hargeysa Stadium annaga wada deganeen iyo khadar jiilaa jaamac cabdirashiid cadiid yaasiin cadaawad gaar wuxuu u hayaa ciyaartooyga ka soo jeeda deegaanka iyo dhalinyarta ka shaqeysa garoonka kubadda cagta Soomaaliya 40 ciyaartooy oo mushaharkoodii joojiyay kooxo loo aqoonsanayay seerasi oo shahaadooyinkoodii hor istaagay cabdirashiid cadiid yaasiin tartanka maanta socda ka socda Hargeysa Stadium lacagta ka soo baxday ku geeya cabdirashiid cadiid yaasiin muddo 7 bilood ayuu xilka hayay waxaanu dhistay gurigii ugu weynaa oo masalaha ka dhisan ha ku lacagta ka keenay in la xisaabtamo hanti dhowr waliba la geliyo ayaanu baahanahay garoonka kubadda cagta ee gobolka Saaxil ee Berbera
waxa laga qaadaa ciyaar walba lagu ciyaaro $30 $10 oo kamid Cabdirashiid Caydiid Yaasiin baa loo soo diraa wuxuun baan halkan maanta aad iyo aad u cambaareynaya tababaraha loo doortay xulka gobolka Maroodi Jeex ee Jamaacante Cabdirashiid hor istaagay taasina waxay gaf ku tahay heshiiskii maanta dhoota inuu wada daawanay ka dhacay gobolka Sanaag Cergaabo ee madaxweyne Muuse Biixi uu kula kulmiyay beeshii warsangeli waxa ka codsatay inay ka muuqdaan Somaliland Jamaacante waa nin warsangeliya Cabdirashiid Caydiid Yaasiin wuxuu ku hor istaagay ninkaas inuu nin warsangeli yahay oo uu qaban karin xulka gobolka Maroodi Jeex taasina waa ceeb waa gaf baan leenahay hadda waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynaya wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Qambi awow baan leeyahay shaqaalaha wada fiicanta horaan kugu yiri wada fiicanta laakiin shaqadaada kuma fiicnid haddaan ku sheegay wasaaraddaada waxa ka socda warka ma haysid awoodii wasiirka waxa isticmaalaya Cabdirashiid Caydiid Yaasiin Cabdirashiid Caydiid Yaasiin waxaan doonaynaa inuu soo cadeeyo sharciga hor istaagaya isuduwaha ciyaaraha gobolka Maroodi Jeex tababaraha uu magacaabay cidda hor istaag karta Cabdirashiid waxaan leenahay hodheelada inta timaadid adigoo baaskool sita ee amaana ma oran kartid ciyaartooyga laakiin wixii aad qabataa lagu amaanaya xogay imika waxaad ku eedaysay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha eedo kala duwan oo ay ka mid yihiin musuqmaasuq iyo hanti ummadda oo ka dhistay hanti guri maxaad ku cadeynaysaa aan ahayn eedaad jeedinaysay cadeyn maxaad u haysaa gurigaas uu dhistay inuu hantida ummadda ka dhistay cadeyn maxaad haysaa soo bandhigaysaa waxaan soo bandhiganaa Cabdirashiid anaga si fiican baan isku naqaano aqoon baan isku leenahay dhaxal uu helayna ma jirto oo markuu qofku dhaxal helaaba leeraaba meesha dhaxal buu ka helay mushaar ku qaatana waan ognahay musuqmaasuqa waxaan kugu cadeynayaa ku tarifaka lacagaha uu ka gurto garoonka jeegag uu la baxay oo soo bandhigano seminaaro uu waan qabtay lacaga wahayadaha ka qaato waxa soo dhamo ka dhistay ma jiro mas'uul 7 bilood xil hayay oo guri inta laga dhisan kara anaga xataa Yurub joogno guri inta ku soo dhisan kari weynay waxaad si ka hadashay garoonka soo kale oo aad sheegtay inuu xashiish iyo qashin yaalo suguna uu hadlay mu oran deegaanka ayaa xashiish ku shuba laakiin aad si shakhsiyan ku eeday eedii adiga uu ku jeediyay inaad deegaamayso adiga kula saxba tadhasa markuu ku leeyay tadhasa geedka biyaha laantii miyuu baxaa tadhasa dareer buu ka soo jeedaa tadhasa xashiishka daadiya waa arba xashiish ku daadiya garoonka assalaamu calaykum.